واتها ninkan xerada guulwadaha maalintii la qabanayay ninkii ragii jamaahiirta ay kaarayaasha fuulayay ee jamaahiirta dhex wardayay buu ahaa way jamaahiirtu marka la safana waata mahad cambaashu ka soo tagay waan isa saxay buu yiri kanaan hay buu yiri wadankayga wax la qayb buu yiri dadkayga wax la qayb buu yiri nin marka dagaalamayo oo ku jira jamaahiirta oo nimanka istusayo ahaa waata de sir iyo wuxuu raadinayay lama garan karo sidii loogu ogaa inuu jamaahiirta ka garab dagaalamayay uma isagoo life gooja cad kaga soo jira xagga u wareegay oo mahad cambaashu garab fadhiya la arkay ninkan hayb ahaan waxay aad isugu dhaweeyeen mahad cambaashu waa ilmadeer ruma sida la ay sheegayo waa nin aad iyo aad faamil ahaan ugu dhow xagga tashigana ragga ugu dhadhow buu kamid ahaa ninkan waxa la sheegay cid ku helisa lama garanayo laakiin balwadaha khamriga iyo jaadka waxyaabahaas inuu isticmaalo iyo aad ugu baasaa kula wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xog waran waxaan xog idin ka haynaa magaalada Laascaanood oo maanta la sheegay in xabadaha gooskooska laga maqlayay kuwaas oo ciidamada isku ridayeen balse sida aynu dhawaan la soconay magaalada xaaladeedu waa ay deegaanada wax dagaal ah kama dhicin maadaama lagu jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan 10kii ugu dambeeyay waxaad moodaa in qoliyuhu kala cibaadeysanayaan oo wax dagaal maalmahaas una ka dhicin magaalada sidoo kale waxaan xog idin ka haynaa Nuur Guray oo kamid ah ciidamada ugu dhadhow ama dadka ugu dhow mahad cambaashe oo la sheegay in lagu qabtay isagoo markaas agaab u raadinaya mahad cambaashiya taliskooda dabcan oo ay u dirsadeen iyagu markaas Nuur Guray ayaa ugu horeyntii ama judhi dagaaladu marka ay socdeen sheegay inuu ka goostay qaybta Somaliland uu ku biiray ciidamada xaquudirka SSC balse wixii inta ka dambeeyay waa uu isla bagadiyo waxa uu hadana dib ugu noqday mahad cambaashiya teamkiisa Cabdiraxmaan Fagaadha ayaa garabkayga fadhiyo arrintan si dawlad sida Cabdiraxmaan uu soo dhaw si guud bal ka waran xaaladda iyo ninka la leeyahay waa la qabtay bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamina daawadayaasha muxidiin adigana waan ku salaamay waxaan leenahay Ramadaan mubaarak Ramadaan wanaagsan 10kii dambe lagu jiraa ee Laylatul Qadr ku jiray waan gartay ilaahay ku cibaadaystay ilaahay bishaas barakadeeda waafajiyahay naga dhiga dhamaanteen idinkana daawanaya iyo anagaba amiin inta kasoo kala aanan yahay xaaladeedu waa iska degantahay laakiin difaac baa la isugu jiraa mar aan la xiriiray maanta oo aan la hadlay wariyeen halkaas inoo jooga waxa uu ila wadaagay in dagaal goos ah saakay ka dhaceen dhanka jamaahiirta oo isagu markaa iyada ah ku sugnaa oo ka warhayayna dhaawacyo sahlan ay jireen oo khasaare fara badan oo jirin dhankoodan kalena de hub un lagu garaacay aan warsaas laga haynin dagaalkaas saakay aroortii hore baa la sii rojoomay muuna sii dheeraanin dhul iyo gaadiid midna lama kala qabsan laakiin dagaal duqeyna muuna ahayna dagaal rasaas toos la isku riday buu ahaa intaas waa dhanka dagaalka shalay baa waxaa dhacday marka arrin kale oo tan maanta aan ahayn waxa la qabtay nin la yiraahdo Nuur Guray oo social media aan hore uga daawanay ninka Nuur wuxuu duubi jiray muuqaalo uu ku dhaliilayo garaadada oo garaad jaamac waliba ku dhaliilayo gala dagaalkaadna tiri adiguna beeshaadii waad reebtay reehibel oo xagga dambe ka galaa tiri eedayma u jeedinay fara badan ninkan waxa uu ka soo dhex duubi jiray gooja cadde uu ka soo duubi jiray waxa uu tagi jiray waxaan joogaa uu dhihi jiray Yagoori waxaan ahay hebel muuqaal baa laga duubi jiray live oo caadi ah waxaan idin sheegayaa gala dagaalkadii la idin yiri dhulbahantow inayna idin doonay dib intaas ugu soo noqono aan tashana arliga iyo dadku waa Somaliland erayadaas aad u xajbigeeray nin marka bomboonin iyo propagandayn ay ku jirto oo media aad isticmaalaya iyo aha ninkan xerada guulwadaha maalintii la qabanayay ninkii ragii jamaahiirta ay kaarayaasha fuulayay ee jamaahiirta dhex wardayay buu ahaa jamaahiirtu marka la safana mahad cambaashu ka soo tagay waan isa saxay buu yiri kanaan hay buu yiri wadankayga wax la qayb buu yiri dadkayga wax la qayb buu yiri nin marka dagaalamayo oo ku jira jamaahiirta oo nimanka istusayo ahaa de sir iyo wuxuu raadinayay lama garan karo sidii loogu ogaa inuu jamaahiirta ka garab dagaalamayay uma isagoo life gooja cad kaga soo jira xagga u wareegay oo mahad cambaashe garab fadhiya la arkay ninkan hayb ahaan waxay aad isugu dhaweeyeen mahad cambaashe waa ilmadeer ruma sida la ay sheegayo waa nin aad iyo aad faamil ahaan ugu dhow xagga tashigana ragga ugu dhadhow buu kamid ahaa ninkan waxa la sheegay
عيد كوه السلام قرني لكن بالوده خمرة يجات يحباس نستعمله يعاد وقباسة السجا يشن نوكله يا مركا أنت جاري بربك سقعتين ويهوبك إسكندجان ومعوسية شاتية حدان يهوست كدوسين ما ما هاد باودري يسراكيشن كلا وخمرة الربي ما يجون بخمرة الدونتي بو هادلي يو ماشي حد كإثيوبيا وجوده يو خمرة وصدراني وهو تسوق عليه يا تويل سمكاب ميلادو يا لو قبته دب أو ولا قرني دين عانوا هاي وبرع بالشدة قايلين يو أرد يو أو وحسمين يو ولا قرت بركب إسلام مركب ولا قرت تذكين وضد وضد شو سكرني تويل سمكاب تاني وده دول كجماهير تجوكت مع البو هذا ده بالود ده بقعدة إنه المشي كنا بتقلين وقرني دب أو أفكار تبي الشنتي لس دورتي لسعتي سجوا حقنا لقلب بودي خلاص عينا ولا أمين واي تكرر ولا أمين واي يبقر ولا كي مقالة لقى صوت دوي مركز سوكو هلا يو مقالة سمرك وجال كده يقروا والله وحيو وقروا ولا جينك نكاس لكن إنك محاسب بتقرأ اللوجي محيطين بس ما الله وحنا صعنا يعني مو تشيدني بودلان ولا عين تقال كغيب كين هدي محابيس يجا لقى قبتي بودلان ما بقرصته إني أي تقال كغيب كتاعي أو أي تاجريس تاجر دي يتن إن محابيس يحران أو محابيس تا نك دختر كجيني يبقتدا دي لسعانو دختر ملا كوينو كفلنا وضد كنوع عاصو كلا لو حينه دخاتيرته وتسمى تقينيسو dhaawicii iyo dhakhtarkii baa garow la geystay maxaabisti maxaa loo geysan waayay waa gargaar caafimaad oo dadkan loo fidinayo maxaabisti laakiin hadii la waxay noqonaysaa inay Puntland toos dagaalka ugu jirto kadibna maxaabista la qabtay iyo dhaawacoodii iyo waxoodii sida Hargeysa oo kale inay garow saas miyeen Puntland ma baqarsanayso Puntland yani dagaalka way ku jirtaa waynan u hagar bixin mooyaane way taageersan tahay ugaasiyadii iyo garaadadii iyo wixii rugta loogu imanayo ee wada hadalsiinaysa ee dhaawac la keenayo maxaan ku dhahay in la keenayo maxaan ku dhahay in burburka iyo wixii waa dad wada dhashay oo marka garowe wixii maxaabiis saas oo kale la qabto garow waa la keensan wixii dhaawac khatar ah garow waa la geyn ilaa Muqdisho ilaa iyo waxa loo sii gudbinaya wixii takalade uma sinaan karaan garow iyo nimankani Soomaali weyn bay rabaan garawna waa Soomaali weyn meel ay ku kala marnaan karaan malaha waa laba dad oo walaalo ah oo maxaan ku dhahay laba maamul goboleed oo Soomaaliya inay ka wada tirsanaadaan raba iskaashina sameystaan yay ahaayeen marka garowe waa sida ay tahay un maxaan ku dhahay galmudug iyo garowe soo yihiin Puntland iyo maxaan ku dhahay galmudug soo yihiin ay sheegeen Jubbaland iyo Puntland soo yihiin bay isu noqonayaan labadana marka wax la baciidsan kara ma in maxaabiista la geystay garowe وياه سومالنا وحنا لسعنا تضباطين يقدم والصحافات ay soo saareen oo ugu dambeeyay Faysal Cali Waraabe waxay sheegayeen in magaalada ay dad khamrida cabba oo iyo xaalad kale ficilo xunna way qaar sheegeen in gabdho ku dhax kufsadeen iyo fara lagu geystay oo ku eedeynayeen in dad khamrida cabba oo dhaqamo xun magaalada ka dhaxwado hadii iyaga dad kitaabacsanaa ay goojacda ka baxay la leeyahay khamri baa lagu qabtay ma laba eedeymo oo la isku tuurayo bay u egtahay arintaasi say wax u jiraan maadaama kuwana lahaan dad khamrida cabaya magaalada laga dhax qabtay iyo magaalada ka dhaxwado gabar ku fsaday wax noocaas kala qoladan kalena leedahay ninkan wax buu raadinay labada arimood ma eedeyn la isu diraya ma Faysal Cali Waraabe dhahaya yani lascaano dad khamri cabba iyo dad dabcan Faysal magaalada ma haystee muxuu ka warhayaa Faysal magaalada ma haysto warbixinada laakiin loo gudbin karaa waxaas waa iska propaganda oo ninkii magaalada joogay haduuna mar ahayn ruux reer lascaanaha oo ka cabanaya dad ciidamadan u dagaalamaya ee u soo gurmaday ah dhibaato ay geysteen يعني أوريلاس أنا أوريلاس أنا دبكاس عيدنك يقول سميين له روح لعيدنك يبقى خمر إيه وحدة ديني ما وتشيره برك الله ما قبره يقول هذا كسر جد هرت بحوش يجان مدة الله بعد نين دفاع بكتيري دجال بكتيري لايف بوك كسر جري جوج عادي ما عباش أكتيس وحجاري بربك سنتودي ومعوس حري بوه الله قدري يعني وعلى جرن كرا وعدين تهذا شاد إنه رادني إنه خمر رادني محلو كلا جرنه وعلى شيء حلي خمر بي جاري كور رادنيين ما قرنا يجاتكو إنه ماشوا وين الله جاري يوحنا ولا الوري ما كان حقوق أساسي ولا الوري ها هي أساسي ولا ورقتي
aad baad mahadsantahay. kaasi waxaa cabdiraxmaan afagaadha oo aala barnaamijka aan wada falanqeyno ilana falanqeynaya xaaladda laascaanood iyo dabcan nin la yidhaahdo nin aada ugu dhow mahad cambaasho la sheegay in uu halkaa isagoo raadinaya sida ay sheegeen adeegyo isagu markaa u baahnaa in la qabto islamarkaana garow la geeyo. barnaamijka xigay intaan ku kulmi doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.